shacab marka hore laba maamul baa haystay inkastoo ay xagga Somaliland ay jeegaanta u badnayd Musabix iyo xulfadiisa argagixisada ku saleysan hadda waxay galeen dadka shacabka ahaa waxa maqlayseen ninka ku hadla afka madaxweynaha ninka ku magacaabanaya Musabix afkiisa ninka ku hadla Faisal Cali Waraabe oo video fool xun oo bulshada Soomaaliyeed intii wax garanaysay ay ka dhigayeen ay ka xumaadeen soo dhigay baraha bulshada soo ku cambaareynayay in Puntland iyo magaca beelweynta Majarteen iyo iskuna dilayay uma Soomaaliyeed Musabix ninka la yiraahdo Faisal Cali Waraabe codka uu ku hadlo waa codkii Musabix waxaad ka garanaysan Musabix ma hadlo waxa uu hadlay Faisal Cali Waraabe oo ah aad u taqaanaan nin neeris ah waalan nervisa Musabixina Faisal Cali Waraabe wuxuu ku hadlayay walaalkii inuu bulshada Soomaaliyeed isu dirayay oo lahaa jaamacadda Axmed ee ku taala magaalada Buurama jaamacadaas oo ah jaamacad fac weyn oo bulshada Soomaaliyeed kuwa ka soo jeeda dowlad deegaanka Soomaalida iyo kuwa ka soo jeeda NFD kilanka wadanka Kenya ay halkaas iyo Puntland iyo Somaliland bay halka ku baran jireen si siban oo ay wax ku baranayeen Musabix iyo ninka la yiraahdo Faisal Cali Waraabe jeegaanna waxay ku tashadeen inay bulshada iska hor keenaan bulshada reer Puntland iyo kuwa reer Somaliland haddii reer Somaliland raacayaan oo Musabix iyo Faisal Cali Waraabe jeegaan warkeeda raacayaan iyaga u taala haddii ay is xoreynayaan oo waxa la yiraahdo ay wixii lagu yaqaanay reer Buurama ay sameynayaan dee waa arrin wanaagsan inkastoo dowladda Puntland ay soo saartay bayaan ay ku dalbanayso in lagu soo celiyo muwaadiniinteeda ka jooga meeshan lagu magacaabo waqooyi galbeed ee Soomaaliya Somaliland ay dadka qaar u yaqaanaan waxaan ku cambaareynayaa jeegaanta dagaalkan fool xumada leh ay ku hayaan dhulka reer Puntland ha noqoto gobolka Sool Sanaag iyo Cayn iyo deegaanka Tukaraqba Puntland dadka qaarkiis waxay dhahaan Puntland waxay u socotaa Tukaraq si Tukaraq ay ugu soo qabsato Puntland Tukaraq kuma socoto Puntland waxay ku socotaa deegaanadii ay xaq u lahayd reer Puntland sida Sool Sanaag Cayn iyo Cergaabo waxaan ay tagayaan Somaliland meesha xaq u lahayd inay awooyaashu degi jireen oo ah labadii gaatama iyo wixii ka sheeyay hadii reer Puntland lagu khasbo inay tagaan magaalada Burco gudaheeda aanu galnaa Burco insha Allah ciidamada Puntland ee geesiyiinta ah aad iyo aad baan ugu hambalyeynaya waxay gali doonaan Hargeysa la soo qabsan doonaa hadii aysan Somaliland ka wada bixin kuwa jiri meesay intaysan ehelka ku kala dhiman baan uga digaya inay ka baxaan Somaliland ay meel awood ku qabsan karto ciidamada Puntland ciidamada libaaxa bariga Afrika kama hor imaan karaan ciidamo xun oo maleeshiyaad oo la soo aruuriyay jeegaan ah oo riyal ugu sasabay ninka Soomaaliland macaadana nin walba uu ogyahay rag waxa laga wada helayaa balaha bulshada laga wada helayaa ragii waxay yaqaanay ha noqday kuwa ka soo jeeda waqooyi galbeed iyo kuwa ka soo jeeda deegaanada waqooyi bari Puntland waxay barnaamijyadii laga diyaariyay oo baraha bulshada yaala nin walba wax garanaya wuu arkay waxa Soomaalidu ay tahay waxa la isku yahay Somaliland waxay tahay wali yaqaan Puntland waxay tahay wali yaqaan waa nimankii Ingiriisku uu ku yiri dhulka iga gada oo Ingiriis la yiraahday dhulka ka gadanaa Ingiriisna markuu arkayna nimankan muwaadiniin ahayn ay ka tageen Professor waxa ku weydiinaya hal su'aal ma isleedahay Somaliland waxay ku lug waxa la leedahay al-shabaab Somaliland iyo al-shabaab waa isku mid sababtoo ah Somaliland danteedu hadii Somaliland wax ku dhawaaqan jamhuuriyadda Somaliland la yiraahdo hadii Soomaaliya dawlad laga hoo ay dhalato oo Soomaaliyeed awood lahayd la yaqaanay ay dhalato wax Somaliland la jirin biyaan dhulka Soomaaliya dhulka lagu eekar ma horta batata waa wadan yar wadan isku dad ah isku diin ah isku dhaqan ah dadka lagu eekar ma ahan Somaliland ehelka umbe kala dhimanayaan oo dadka umbe kala dhimanayaan wax Somaliland loo imaanay misle Somaliland waxay ku dadaalaysaa sidii koonfurta aysan u xasil lahayn iyo barigu hadii ay xasilaan deegaanada hadda colaadda ah Somaliland wax la dhaho oo jiraya ma jiraan shacab marka hore loo maamul